masar markay kasoo baxeen nebi ibraahim calayhi salaam iyo saara boqorkii masar wuxuu soo raaciyay hadiyada waxaa kamid ahayd gabadh jaariyada oo haajira la idhaahdo. falastiin markay soo galeen nebi ibraahim calayhi salaam iyo saara iyo haajira muddo ayay ku noolaadeen. saara waxay dareentay inay da ahaan korayso, soo kale odaygeed inuu da ahaan korayo laakiin uu rabo ciyaal. marka gabadhii u shaqeynaysa haajira ayada boqorka masar soo siiyey ayuu hadiyadeysay odaygeedii ibraahim. haajira iyo nebi ibraahim calayhi salaamna muddo markooda noolaan haajira waxaa dhashay nebi ismaaciil calayhi salaam. laakiin saara dabcan maadaama gabadh ahayd way ka hinaastay haajira, waxaa istira odaygeeda kaaga dhawaanaysaa. dabcan waana dabeecaday ku abuuran yihiin dumarku. maalin maalmaha kamid ah ilaahay subxaana watacaala u waxyoodaa nebi ibraahim calayhi salaam inuu kaxeeyo ismaaciil iyo haajira uuna geeyo dhankaas iyo maka. ismaaciil calayhi salaam oo wiilka keliya nebi ibraahim dhalay, welibana wuxuu dhalay nebi ibraahim isugu da-diisu weyntay, macnaha waxaa la sheegay inuu 80 kor u dhaafay. wiilkii keliya u dhalay ayaa ilaahay subxaana watacaala amray inuu kaxeeyo oo geeyo dhankaasi saxaraha. welibana maka waqtigaas ma jirin, kacbaduna ma jirin, dhul saxara oo lama degaan ayuu ahaa, waxaana la odhan jiray Baka. waxay kasoo baxeen falastiin ilaa ay Baka yimaadeen. markii magaalada Maka yimaadeen ayaa haajira ku tiray nebi ibraahim calayhi salaam xaggeed nooga tegaysaa, laakiin nebi ibraahim calayhi salaam uma jawaabin. haajira weli way weydiisay, ugu yaraan meel biyele nagaga tag, meesha saxaraha cidlaha nagaga tegin. nebi ibraahim calayhi salaam lama hadal, weli iska sii socday ilaa haajira markii dambe ku tiri ma ilaahay ayaa ku amray inaad xagga nagaga tagto aniga ismaaciil. markaasuu ugu jawaabay nebi ibraahim haa. markaasay gabadh muuminada ay ahayd oo saalixada ayay ku jawaabtay ilaahay subxaana watacaala markaa nama dayaci doono. haajira iyo ismaaciil calayhi salaam markaa uu ka dhammaaday saadkii cuntadii iyo biyo yaraa ay haysteenba. ismaaciilna oo aada u yarna aada buu gaajooday, hooyaduna ma karta ilmaheedii oo gaajoonay, markaa way carcarartay bal inay cid u raadiso wadooyinkaa maraysa si ay biyo saad yar wax uga qaataan. xataa laabteedu way qallasho, wax caanaa kuma jiraan oo ismaaciil ay siiso. inta ay urordaysa waxay fuushay tal ama buur yaroo safo la idhaahdo, balse ay u eegto wadooyinkaa cid maraysa musaafiriina cidna way weyday. haddana way soo caartay buur kaloo marwo la idhaa ayay fuushay si ay cid kale u raadiso musaafiriina, laakiin way weyday. inta ay isku urordaysay safa iyo marwo ayaa 7 jeer ahayd, ilaa waqti xaadirkana 7 jeer ee safa iyo marwo aynan orodna. inta ay urordaysay ay soo noqotay nebi ismaaciil calayhi salaam oo lugihiisa hoostiisa biyo kasoo baxayaan. biyaha walay ku shubto iyo maray ku urursatona may wadin, ciid ay soo ururseedoo leh zam isku soo urura. macnaha xaggaas ayaana magaca biyaha zamzam ugu baxeen. qabiilooyin carbeed oo deganaa yaman ayaa biyo la-aan ku dhacay, kadib way soo hijroodeen iyagoo biyo raadaysa, waxaana soo mareen wadadaas Baka. dabcan lama degaan maahan, makani ma jirin sida soo sheegnay. Baka markay marayeen ayay arkeen gabadh iyo wiil yar oo biyo haysta. qabiilooyinkan carbeed gabadhan iyo wiilka yarka may khasbin, way yimaadeen, waxay ku dhaadeen noo ogolo inaan xaggan degno, biyahanaad wax naga siiso, mar walba biyahanan qaadananaan adigana muqaabil ku siino, lacag ku siino. haajarna sidii ay ka aqbashay, qabiilkaasina xaggaas ay degeen. qabiilkaas waxaa la odhanaya magaciisa Jurhum. qabiilkaasi marka xaggaas degeen, xaggaasayna ka bilaabantay magaalada waqti xaadirka u naqaano Maka, magaalada barakaysan. nebi ismaaciil calayhi salaamna maahan carab oo isagii aabihii nebi ibraahim calayhi salaamba kancaani ay ahaayeen oo falastiin ay ka yimaadeen. qabiilkan Jurhum ayuu nebi ismaaciil calayhi salaam la koraa, af carabigan xaggaas ay ku bartaan. xataa qabiilkan carbeed ee Jurhum ayuu ka guursadaa. dabcan waxaana ka tarma qabiilkan Quraysh naqaano. Quraysh nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ay dhaleen. soo kale waxaan wada naqaanaa qisada nebi ibraahim calayhi salaam uu ku riyoonay isagoo qalay wiilkiisa ismaaciil, kadib uu falastiin kasoo safray Maka imaanay, una sheegay wiilkiisa inuu ku riyooday isagoo qalaya. kadib ismaaciil calayhi salaamna uu odhanaya aabba fuli wixii ilaahay subxaana watacaala ku amray. ismaaciil ayuu soo qabanaya nebi ibraahim calayhi salaam, kadib mindi ayuu soo qaadanaya. markaasaa ilaahay subxaana watacaala samada kasoo dejiya neefkaas ayaanu nebi ibraahim qalaa. ismaaciil calayhi salaam xaggaas ku badbaada. qisada kale waxaa tahay malaa'ig ilaahay subxaana watacaala usoo diray inay soo halaagaan qowmka Luut oo dabcan noolaa waqtiga nebi ibraahim calayhi salaam noolaa isaguna. malaa'igtaas qowm Luut intaan u tegin ka hor ay nebi ibraahim calayhi salaam u yimaadeen, kadib ugu bishaareeyeen inuu dhali doono isagiyo xaaskiisa Saara inay dhali doonaan wiil Isxaaq la idhaahdo. wiilkaas oo nebi noqon doona. wiilkaas nebigana wuxuu sii dhali doonaa wiil kaloo nebiya oo Yacquub la idhaahdo. Saara oo maqlaysay markii malaa'igtu ugu bishaareeyeen nebi ibraahim inuu wiil dhali doonto way yaabtay. markaasay tiri ma waxaan dhali doonaa anigoo cajuusa, soo kale odaygayga laftarkiisuna uu cajuus yahay, macnaha labadeedu waan daawaaweynaysan ku dhali doonaa. ilaahay subxaana watacaala ayaa u jawaabay Saara ku yiri ma waxaad la yaaban tahay marka ilaahay subxaana watacaala
waa xamiidu majiid. marka ilaahi subxaana watacaala saaro wuxuu ku karaamay inay dhasho iyadoo da-weyn welibana wiil nebi oo isxaaq la idhaahdo, wiilkaasina uu nebi kala sii dhalo oo yacquub la idhaahdo. nebi ibraahim calayhi salaam intaa waxay ka dambeysay haddana oo loo waxyoodaa inuu tago maka oo kacbadii dhiso, kadib falastiin inuu kasoo safraa maka u yimaada. makana waxaa sii joogay nebi ismaaciil calayhi salaam, isaga iyo nebi ismaaciil oo iskaashanaya ayaa bilaaba inay kacbada dhisaan. kacbada markii dhameeyna xajarul aswadka ayuu ilaahi subxaana watacaala samada kasoo dejiya, kadib ayaa la geliyaa meeshan maanta ilaa waqti xaadirkan uu gashan yahay. nebi ibraahim calayhi salaamna ma ahayn nebi qofkii ugu horreeyay kacbada dhisa, si culimmadu sheegaan malaa'igta ay dhistay markii ugu horreysay, kadib ayay duntay nebi aadam calayhi salaam ayaa haddana dhisay, kadib haddana way duntay nebi ibraahim calayhi salaam ayaana dhisay. waa nebi ibraahim markuu dhisayay seeskii hore ee kacbada uu jiray keliya ciiduma dul fuushay, seeskaas ayuuna ka bilaabay oo dhismii kasii waday. markaas ayuu bilaabay nebi ibraahim calayhi salaam inuu dadka xajka iskugu yeedho, waana nebigii ugu horreeyay bilaabo xajka. intaas waxay ka dambeysay nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu ku geeriyoodaa mandiqada khaliil la idhaahdo, waxaana aasay labadiisa wiil nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq. nebi ibraahim calayhi salaamna waxaa loo yaqaanaa abul ambiya, maadaama isaga wixii ka dambeeyay nebiye ahaa dhammaantoodba isaga tafiirtiisa ahayn oo isaga ka farcameen. qisina xigta waxaan kaga hadlaynaa qowmka luut ee fuxshiga badnaa, siduu ilaahi subxaana watacaala qowmkaas u halaagay. waxaana noolaayeen isla waqtigii nebi ibraahim calayhi salaam nool yahay oo makiya falastiin dhex socday iyo masar ilaa baabil uu ka imanay, waqtigaas ay iyaguna noolaayeen. la soco muuqaalka dambe, waanoo jimcaha dambe haddii ilaha ka dhigo.